السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أد بندين سلامي جودهان دتك كحران كنال كيجا لباد لين إنجليش ويس حسن صاحبي هالمانتو حيدين سو دياريي شيكو أد وحيسا بدن رونانتي شيكتان وحا عوان لوغا دقاي The Lazy Donkey تمركي عاجز لوغا أها رونانتي شيكتان أد بد وغرياقي دونتا مركي عاد داوتو هدبا داوا شوعا بلو إلى دماتك إن شاء الله أريدكو عصبنا ملئناتكو غورد بان رجينيا. Once upon a time waayaha ka mid ah. Once upon a time waqtiyada ka mid ah. There lived a trader in a small village. Waxaa jiray ganacsade ku noolaa xaafad yar. Village waa xaafad. He traded wuxuu ka ganacsanayay different items shayaal kala duwan in the market suuqa for money lacag darteed si uu lacag u helo shayaal fara badan buu suuqa uga ganacsan jiray. waayahay the trader ganacsaduhu ama the trader ganacsaduhu had wuxuu lahaa a donkey dameer buu lahaa. he used to put wuxuuna soo saari jiray eragan used iyo to hadday israacaan isticmaal ma ahan ee waa jiray put waa meel wax in meel la geliyo ama la saaro mogtahay. he used to put wuxuu soo saari jiray sacks of goods loorar badeeca ah. goodies waa badeecooyin, sacksna waa loorarka ama jawaanka ama kiishka hadba sidaad u taqaanid. on the donkey's back dameerka dushiisa ayuu soo saari jiray. and take them wuxuuna u qaadayay to the market suuqa to sell si uu iibiyo. the trader ganacsaduhu took really good care of his donkey. run ahaantii si aad ah ayuu uga taxadiri jiray dameerkiisa. took waa past of take care waa iska taxadir mogtahay marka hadda labadan la soo dhaxgalay really good marka waa si wanaagsan ayuu took care uga taxadiri jiray of his donkey dameerkiisa. he knew wuxuu ogaa that the donkey in dameerku was important uu muhiim u yahay for his business ganacsigiisa. the donkey dameerka was kept waxaa lagu ilaalin jiray clean mid nadiif ah and healthy haddana caafimaad qabo. caafimaadkiisa iyo nadaafadiisa waa laga fikiri jiray dameerka. he was given waxaa la siinayay good food cunno wanaagsan to eat si uu cuno. he was young wuu yaraa waa dameerke and strong haddana wuu xooganaa. he could take wuxuu qaadi karay the load culayska many sacks loorar fara badan on his back ee dushiisa. and walk wuxuuna ula soconayaa to the market suuqa. but laakiin he was also wuxuu sidoo kale ahaa very lazy mid aad caajislow ah. dameerkan wuu xooganaa wuuna yaraa laakiin caajislow buu ahaa. the donkey dameerku didn't like ma uusan jeclayn to work inuu shaqeeyo at all gebi ahaanba. he only wanted wuxuu keliya doonayay to sit around inuu hareeraha iska fadhiisto, eat uu cuno and sleep uuna iska hurdo. shaqo dhan ma rabinba dameerkan. but laakiin the donkey dameerku does not understand ma uusan fahamsanayn that in the trader ganacsaduhu could not take uusan qaadan karin a holiday maalmo fasax. if haddii the trader ganacsaduhu does not go uusan aadin to the market suuqa, then he will not earn kadibna ma shaqaysan doono, and then kadibna there will be no food cunno ma jiri doonto even xitaa for the donkey dameerka haddaan suuqa la aadin wax cuntaa lama heli doono. he used to walk wuxuu u socon jiray his donkey dameerkiisa every day maalin waliba from his village isagoo xaafadiisa ka soo baxaya ayay suuqa aadi jireen iyagoo asoo loorar iyo waxaas ku wato badeeca si uu soo iibiyo. each day maalin waliba to reach si ay u gaaraan the market suuqa they had to cross waa inay ka gudbaan a river webi. haddaba sheekada meesha ugu xiisaha badan waa halkan. maalin waliba si ay suuqa u gaaraan waxay sii mari jireen webi ayay dhex mari jireen marka dameerka iyo ninka asoo badeecada ku wado. the trader ganacsaduhu took special care si gaar ahaaneed buu uga taxadirayay of the donkey dameerka while crossing marka ay jarayaan the river webiga markay gudbayaan dameerka aad u ilaalin jiray. laakiin maxaa dhacay one day maalin a friend saaxiib ayaa told wuxuu u sheegay the trader ganacsadihii that in there is uu jiro a heavy demand dalab culus
for the salt cusbada maanta cusbada suuqa dalabka cusbada inuu aad u culus yahay cusbo badanna suuqa looga baahan yahay ayuu sheegay in the market suuqa soon si dhaqsi ah the trader ganacsadihii dameerka lahaa arranged wuxuu isku aadistay ama hagaajistay for 12 sacks 12 loor of salt oo cusbo ah to be sold si uu iibiyo he took wuxuu qaaday 6 sacks 6 loor and started wuxuuna bilaabay to load inuu ku xamuulo to load them inuu ku raro on the donkey's back dameerka dushiisa he then kadibna realized wuxuu rumaystay that the sacks in loorarku were getting heavy ay culays yihiin the donkey dameerkuna could not walk uusan socon karin maxadaba not wanting isagoo aan doonin to hurt inuu dhaawaco the donkey dameerka the trader ganacsadihii lifted wuxuu ka qaaday 1 sack of hal loor ayuu ka qaaday his back dushiisa however si kastaba haatee even then xitaa kadib the donkey dameerku was not ready diyaar uma ahayn to walk inuu socdo that day maalintaas the trader ganacsadihii sold wuxuu soo iibiyey all the sacks of salty guud ahaan loorarka cusbad ahay ayuu wuxuu ku soo iibsaday in the market suuqi lacag badan ayuuna ka soo helay the trader ganacsadihii then started kadib wuxuu bilaabay to sell inuu iibiyo salty cusbada every day maalin waliba maalin kasta inuu cusbad iibiyo ayuu bilaabay maadaama maalintaas lacag badan uu ka soo helay a few days passed maalmo yar markii la mooday then kadibna one day maalin the trader ganacsadihii loaded wuxuu ku soo raray 6 sacks of salt 6 loor oo cusbo ah and left wuxuuna aaday for the market suuqa ayuu aaday as they reached markii ay soo gaareen the river webigii the trader ganacsadihii noticed wuxuu ogaa that in the water biyuhu has a little bit high inay wax yar ay sareeyaan oo maanta intii hore ay ka sareeyaan biyuhu webigu ay kacsan yihiin let's walk markaa dameerka isagoo la hadlay wuxuu leeyahay let's walk aynu u soconno very slowly si aad u hooseysa today maanta I don't want ma doonayo to slip inaad sibirraxato and fall aadna ku dhacdo into this gushing water biyahan hadba dhinac isu dhaafaya gushing water waxaa la yidhahdaa biyuhu markay hadba dhinac isku dhaafayaan as they crossed markii ay jareen half the river webiga qaybtiis markay jareen oo dhex bartanka ay marayaan suddenly si lama filaan ah the donkey dameerkii slipped off wuu simbirixday a big stone dhagax weyn ayuu ku simbirixday ama ku kufay and sat down wuuna fadhiistay with a thud iyadoo dhawaqa uu ka yeeray thud waxaa la yidhahdaa shay markuu dhulka ku dhaco dhawaqa ka yeeray tusaale shay markaa kor u tuurto biyaha aa ku dhex dhufatid dhawaqaas uu sameynaya waxaa la yidhahdaa thud the trader ganacsadihii somehow managed si uun wuu u maareeyey to pull inuu kor u soo qaado the donkey dameerkiisa up kor dameerkii inuu soo istaajiyo oo biyihii kasoo istaajiyo ayuu maareeyey and made him cross the river wuxuuna jarsiiyey ama ka gudbiyey webigii the donkey dameerkii was scared wuu cabsaday and shocked wuuna naxay but laakiin then kadib he felt wuxuu dareemay something wax the sacks loorar marka wuxuu leeyahay dameerkii isla hadlaya wuxuu leeyahay the sacks loorarku are still on my back weli dushayda miyay saaran yihiin then kadib how does my back feel so light sidee dushaydu ay si khafiif ah u dareemaysaa yacni biyihii markuu ku dhex dhacay cusbadii uu waday ayaa waxay ku dhex milantay biyihii sidaa darteed loorarku waa faaruq marka wuu yaaban yahay wuxuu leeyahay dushayda culays maba saarnay xaa dhacay this river webigan markaasoo asoo isla hadlay wuxuu leeyahay this river alla webigan has wuxuu leeyahay a magical power awoodo sixir ama awoodo cajiib ayuu leeyahay what the donkey waxa dameerku didn't know uusan ogeyn is ayaa waxay tahay that in there was no magic in aysan jirin wax sixir ah in the river and webiga when markii he fell uu ku dhacay the water biyihii ayaa dissolved waxay ku milmeen ama ku qasmeen all the salt guud ahaan cusbadii in the sacks ee ku jirtay loorarka which is why taasina waa sababta the donkey dameerku felt uu dareemay no load culays la'aan on his back dushiisa there was no salt ninkii ganacsadihii hadlay wuxuu yidhi there was no salt ma jirto wax cusbo ah oo left ku hartay in the sacks loorarka now hadeer the next day maalintii xigtay the trader ganacsadihii again loaded wuxuu ku soo raray 6 sacks
6 sacks lix loor of salt ee cusbo ah on the donkey's back dameerka dushiisii and walked him wuxuuna ula soo socday to the market suuqa dameerkii oo isla hadlaya wuxuu yidhi yesterday was so nice shalay aad bay u fiicneed today maanta again mar kale I have to work waa inaan shaqeeyaa wait isug hoos iskula hadlaya wuxuu leeyahay I can avoid waan ka fogaan karaa working shaqada just like yesterday sidii shalay talo oo kale the water biyuhu has magical powers waxay leeyihiin awoodo cajiib ah yani mar kale inuu dhex fadhiisto raba markaan si ula kaca I'm sure one huba it will help me way caawin doonaan again mar kale unaware of the donkey's intention waa ninkii ganacsadaha ayaa laga hadlaya unaware ka warhayn la'aanta of the donkey's intention ulajeedada dameerka sida ula kaca ama sida kaska ah ee dameerka asagoon ka warhaynin the trader ganacsadihii started wuxuu bilaabay walking inuu u soo socdo towards the market dhankii suuqa as they reach markii webigii soo gaareen the river webigii the donkey dameerkii went a step ahead tilaabo ayuu ka hormarayba ninkiiba webiga asaa uga hormaray and before the trader ka hor ganacsaduhu could stop him intuu joojin kari lahaana he sat down wuxuu fadhiistay in the same spot meel la mid ah goob la mid ah spot waa goob he had fallen midii uu ku dhacay meeshii shalay uu ku dhacay meel la mid ah haddana fadhiistay the salty cusbadii kept oo la ilaalinayna on the donkey's back dameerka dushiisina had dissolved waxay ku milantay ama ku qasmantay in the water biyihii again mar kale markaa dameerka islaadla wuxuu leeyahay there was no burden wax culaysa ma jiraan the donkey dameerku was now happy haddana wuu faraxsan yahay ganacsadihii marka wuu fahmo dameerkan inuu biyaha si kasa ula fadhiisanayo maanta marka cashir baa loo dhigi doonaa let me take home aan guriga u kaxeeyo let me take him home aan guriga u kaxeeyo I know aniga ayaa garanaya what I have to do waxa aan sameynaya the donkey dameerku thought wuxuu u maleeyay that he had found inuu helay a perfect way hab fiican oo to avoid looga fogaanayo waaka shaqada but laakiin the trader ganacsaduhu had wuxuu lahaa a different plan qorshe ka duwan baa la lahaa isagu qorshihiisu wuxuu ahaa inuu mar walba biyaha dhex fadhiisto laakiin ganacsadaha ayaa haddana qorshe fiican degsaday the next morning maalintii xigta the trader ganacsadihii loaded wuxuu ku soo raray 8 sacks 8 loor on the donkey's back idilka hore 6 aad mogtahay 8 laga soo dhiga maanta dameerka dushiisii but laakiin the donkey dameerku did not complain ma uusan ka cabanin 8 loor maxaa lay saaraa ma dhihin yani wuxuu islahaa webiga la dhex fadhiisanaysaa maxaa u qaylinaysaa shib u dheh ganacsaduhu laakiin qorsho ka wataa the trader ganacsaduhu silently walked si asagoo aamusan ayuu la socday the donkey dameerka to the river webigii while crossing the river markii ay jarayeen webiga donkey dameerkii slipped again ayaa mar kale haddana isku simbirrixiyey at the same spot goob la mid ah meeshii and sat down wuxuuna fadhiistay in the water biyihii marka maxaa la sugayaa cusbadu inay biyaha ku dhex qasanto culaysku ka baaba'aso maahan however se kastaba ahaatee today maanta the trader ganacsaduhu did not pick ma uusan soo qabanin his donkey dameerkiisa up kor yani ma uusan soo istaajin as the donkey dameerku tried markii uu isku dayay to get up inuu soo istaago suddenly lama filan ayuu wuxuu yidhi oh no alla maya my back dushayda what's happening maxaa igu dhacaya why is my back so heavy maxay dushayda aad ay ula culus tahay yani biyihii markuu dhex fadhiistay meeshii uu ka sugayay in cusbadu ay biyaha indha ku dhex qasmanto loorarkoo faaruqa uu la soo istaago sidii hore u bartay suma maanta caqligaa loo soo degay wixii culaysay kusoo noqdeen waa soo istaagi waaya maanta 8 loor ee biyaha ula dhex fadhiistay wuu la soo istaagi waaya the trader ganacsaduhu wuxuu ahaa an intelligent man nin caaqil ah he knew wuu ogaa that in the donkey dameerku would try uu isku dayayo to trick him inuu khiyaano again mar kale so this time mar waqtigan instead of loading halkii uu ku soo rari lahaa salta cusbo on the donkey's back dameerka dushiisa he loaded wuxuu ku soo raray cotton suuf buu ku soo raray maanta 8 loor oo suuf ah ayuu dusha u soo saaray as soon as the donkey sida dhaqsaha badneed ee dameerku sat uu u fadhiistay in the water biyahana the cotton suufkii absorbed waxay dhuuqeen the water biyihii and became waxay noqdeen heavier mid aad u culus wallahi cashir baa loo dhigay markan
now had marka dameerkii lala hadla waxaa la yidhi now haddeer you will have to walk waa inaad u socotaa to the market suuqa and come back home aadna guriga ku laabataa with adigoo sida these 8 sacks 8 loor. The donkey dameerku realized wuxuu xaqiiqsaday that the water in biyuhu was not magic aysan sixir ahayn after all. He carried wuxuu qaaday the 8 heavy sacks 8 loor ee culayska ahayd of cotton ee suufka ahayd to the market suuqii ayuu qaaday and then kadibna back home gurigii ayuu soo celiyay. From that day maalinta laga bilaabo maalintaas from that day onwards laga bilaabo maalintaas wixii ka dambeeyay onwards waxa way ka dambeeyay waay. The donkey dameerkii never dared marnaba awood uma yeelan to sit inuu fadhiisto in the water biyaha again mar kaleeto. haddaba idinku waxaa idinka doonayaa what is the moral of history maxay tahay dulucda sheekadani maxaad cashiro aad ka baranaysaa.